معاويستا إيجا دعضي وحوين مي أركين إيه نين لي هذا محمد بسكت دواجاب وتها دواجاب مركاسو مالي والبصدو نو صلاحة شوفوا لي وشيكا كلام مالي والبمدحة وحيرا تنبا مقريو مساكينو إسلاد بجوغا مكيمكو إنت استعمال شيء تنتو كبدي الله أعلم إلهي باقراني لكن إنك صوتين لولي مارانو سميحة قليل إيا مريش لبدا قبدود بان روائنا سدح سؤال ويدي ما أنت دليرتينو مسجد كينا فهم سنة مساجدكو أكشن كصوبحا إكوليهن أنيقا شيخ شانتايا إنت نولا هاي مالك لك ما هالي دونا مسجد كان أفرينيا قبدا مريش لليه قروح كديلا إنت أكتا كفت ليستو أي ليدا هاي وحانكو مرينيا إنت بروش ساقادة ليدا وجيغان كو قرحينيا مريشي دليل أكاينسو نين أجنبية إنا تاتاوة جيركيسا إيا إنا تفردق إسكو رعديستان إنا مالي برنك كسميسو أسنو كسميسو دين تادو هدي أغش هايوان كدلميي إنا إنت براها بلشادة صوفة ديستو تيك توك يوتيوب كيسا يوتيوب كاغا أي أدريس لعبدي أدك شو مسكوتر أهو انت هتكا كينتي سميحة قليلي بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعربا إنان براروجيو وحير هدي الله دونو لبا قبدوت وان ولالا نهي مرنا ان أدير وهي ayaa rabaa inaan baraarujin yar u diro waxaan kaloo rabaa dadka labada gabdhood u dhow waalidiintooda ilma adeertood labada waalid ee labada gabdhood wixii nool waanada aan hawada u marinayo inay qaataan uguna kaalmeeyaan labada gabdhood runtu way qaraar tahay soomaaliduna ma liqdo maalinkay ku maamahaday run sheeg waa ceeb sheeg ay Soomaali xaq diiday boqolkii 10 qofood baa maanta waxay diyaar u tahay talada Allahu Rabbul Caalamiin inay daryeelaan ereygaana 100 mar baan igu celceliyay 9 ka soo hartay diinta kuma dhaqmaan waxay ka reebtana kama haraan markii wanaaga loo tilmaamana waxay leeyihiin diintu waa nasteexo aflagaada maaha shiiqu waa isoo beegsaday midda labaad ay Soomaalidu ay fahamsaneen waxa weeyaan nabigu sallallahu alayhi wasallam maalinka uu Madiina tagay ilaa maalinka uu adduunyada ka tagayay wasaaradda gaashaandhiga iyo wasaaradda arrimaha dibadda iyo wasaaradda maaliyadda iyo wasaaradda caafimaadka iyo wasaaradda shuurada masjidka uu ahay wadaad kale oo intaan anigu nii sheegi kara ma jiro Soomaaliya dhan ciidanka nabigu sallallahu alayhi wasallam masjidku ka diray wafuudi oo u diray يمن علي يا معاد نبي صلى الله عليه وسلم مسجد كو كجر أو كدري وفود مسجد كو نبي صلى الله عليه وسلم كو قابلة داوع مسجد كالكيني محابيست مسجد كالكيني جبرنا مسلمة دا مركو نينك إذا ظهار أو يراهدو سيدي صورتنا أي كتمي قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها ثم جدي تجادلك في زوجها ننبع سحابي حاسكي سوحو كيري أنت علي كظهر أمي نبي صلى الله عليه وسلم أتمي مركاسو يري وحبكو مهايو مركاسا إلهي آيات كان سودجي ثم جدي يا
maanta dhalinyartaynu masjidkayna fahamsanayn masaajidkoo action ka soo baxa ay ku leeyihiin aniga sheekh Shantaaya inta noolahay meel kale kama hadli doona masjidkaan aan fadhinaya qofka wanaag noo qabtana waxaan halkan ka dhahaynaa adduun iyo aakhiro waxsan Allah ku siiyo ayaan leenahay bulshadaada wax tartay diintaada wax tartay halkaan kaga duceynayna cidi baraha bulshada dhaqan xumo u timaada ee la soo fadhiisata ee edeb dara samaysane halkaan baan ka radinayna xumahaydan ka inkarayna yow dhiikar kugu dhicin Samiixa Qaliil iyo Mariish labada gabdhood baan rabaa inaan saddex su'aal weydiiyo walaalaheeyow qurux ku dhiigle iyo Dirisla Cabdi maxaad ka qabataan kama hadlayna annaka gogol cadayno uma hayno waxaan ka hadlaynaa waxaan haynaa fadhiyada idinkoo isla fadha idinkoo isdarbaaxaya idinkoo luqma afka isku gelinaya idinkoo daanka iska dhunkoonaya halkay ka qaadateen yaa nabi nii ah ma ibliisa nabi nii ah mase nabiga sallallahu alayhi wasallam nabi nii ah nabigu sallallahu alayhi wasallam wuxuu diiday xumaha asmaada qiyaamaha markuu tilmaamayo wuxuu yiri hadiiskii Bukhari Muslim Musnad Ahmad inna min ashradi as-sa'ati an yurfa'a al-'ilmu wa yathbuta al-jahlu wa yushraba al-qamru wa yadhhara az-zina إن من أشراط الساعة ساعة قيامه على مذهب وحاكم ذا أن يرفع العلم علمك إلا كريله حالك وضع علماء وحي كفسرين غير ذا دتك علماء الربانيين تا أو دين تا وغرغارو أو برشاد كتابك إلهي السنة النبي صلى الله عليه وسلم الله أكفر يستوى يا باباي سيدا هذا الصومالي كبلاوتي mid wadnuhu istaago mid shil gaari ku dhinto mid gacan ka gardaran ay disho mid la shirqoolo mid xabsi lagu xukumo qaybta labaad wuxuu nabigu sallallahu alayhi wasallam wa yathbuta al-jahlu jahliga la sugi wa yushrab al-qamru qamrigana waa la cabi wa dhaahir zinaduna waxay naqanaysaa buu yiri makshuuf wax muuqdo magaalada Muqdisho qamriga lama dhuunto bal wala xayisiya dukaaman waaweyn iyo hoteelo qamriga iyo shiishada iyo taabuuga iyo calaqa iyo mid kale India laga keeno oo sanka laga qaato ayaa hoteelada qaar lagu isticmaalaa cunto lagama cuno cabitaan xalaalan lagama isticmaalo intaas loo doontaa mid kale oo aniga halmaaman waxa weeyaan badeecada baasha la dhuuqana waa lagu cabaa cabitaanka xalaasha iyo cunida la yaqaan lagama helo ka bacdina wax waaweyn baa ka dhaca meeshaas Dirisla Cabdi iyo qurux ku dhiigle markii la yiraahdo dhowr sanaan iyo diinta islaamka iyo aadaab iyo afgaabniya fiican Dirisla Cabdi yaroon qurux ku dhiigle munkarkana wuu sameeyaa munkarkana wuu martigeliyaa cadeen magaalada Muqdisho waxaa ka tagay dhowr bilood ka hor taqriiban 4 bilood ka hor wiil iyo gabar youtuberada waxaa soo dhaweeyay qurux ku dhiigle Nairobi uu ku soo dhaweeyay goob kasta oo dalxiis loo tago geeyay
magaalada Mombasa geeyay wuu soo ambixiyay sharciga iskula socotaan maxaan iga dhaxeeyo muusan dhihin bale niyadu u dhis baraha bulshada markuu soo galaayo wuxuu ka bilaabayaa waa wiilkiini gabadha mariish la leeyahay qurux ku dhiila inta agta ka fadhiisato ay leedahay waxaan ku marinayaa inta burus soo qaadatay leedahay wajigan ku qurxinayaa mariishay daliil u keenso nin ajnabiya inaad taataawato jirkiisa iyo inaad fadhiga isku raacdaysataan inaad maalin walba baranki ku samayso asna uu kugu sameeyo diintaadu haday ogoshahay waan ku dulmiyay adigoo gabar muslimad ah hadoo islaamnimada aad sheeganayso haday ku ogolaato ay ruqsa sharciga aad u haysato waa ku dulmiyay hadaadan kitaabka iyo sunnaha ka kayni karine ibliisa nabi ku ah been laba rabo waxaa ii soo haray samiixa qaliil samiixay waa adiga subxaana allahi walxamdu lilaahi walaa ilaaha ila allah wallahu akbar oo coda isa saaraye marna xijaabka noo gashaaye marna noo tuuraaye diintu ma maalinkaad rabtaad aad ku dhaqme gelinka horaad ku dhaqme subxaana allahi axabu lkalaami ila allahi arbacun afartaa kelimo allahu rabu lcaalamiin baa aad u jecel kelimada koowaad maxaa waaye subxaana allahi alla ayaa ceeb la waay kelimada labaad maxaa waaye walxamdu lilah walaa ilaaha ila allahu wallahu akbar hala badiyo waa adkaarta mudlaqa oo aan waqti lagu xirin waqti kasta la akhri karaa qofku xataa asagoo daahir ahayn oo akhri karaa ya daahirinimo laguma xiro inaad inta baraha bulshada soo fadhiisato TikTok iyo YouTube-kiisa iyo YouTube-kaaga ee aad dirisla cabdi aad dhag shum isku tiraho intaad ka keentay samiixa qaliilay safar kismaayo inaad la gasho jigjigo inaad la safartay muqdisho aad la timiday nairobi aad la tagtay yaa kuu baneeyey xajka markaad aadaysaa waxaa lagugu xiray ruux ku dhalay iyo ninkaaga iyo wiilkaaga iyo adeerkaa inuu ku wado dadkan youtuberada wadaad wax u sheegay waayeen munkarkii marka macruuf nooga dhigay nabigu sallallahu alayhi wasallam meeshuu xishood ka gaaraan rabaa inaan ummadda tuso tobanka dambe ee bisha ramadaan nabigu sallallahu alayhi wasallam uu i'tikaafi jiray annaha jaa'at رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوره في اعتكافه في المسجد في العشر الأواخر من رمضان فتحدثت عنده ساعة وحان النبي صلى الله عليه وسلم أتمي صفية وحاسسكي سكمده أسألوا كجره اعتكاف تزوره ويسو زيارتي في اعتكافه في المسجد في العشر الأواخر من رمضان أسألوا اعتكاف كيسي كجره مسجد كو اعتكاف أيوه طوانك الدنبي بش رمضان أي نبي صلى الله عليه وسلم حوغا يرو سيارانا وأسوقاتي ساعدنا وإلى شكيستي ثم قامت ويستاكتي تنقلب إذا ربطين نبي كقدومته فقام النبي صلى الله عليه وسلم معها نبي استاغي أصبوا الروين وحاس كيس السوقوتي أو دويو
mara rajulaani min alansaar laba nin ayaa soo martay oo ansaar ka mida nabiguna wuu la socyaa safiya socodkii bobsiin marka wuxuu yidhi calaa rislikumaa xasilooni ahaadow istajiya inamaa hiya safiyatu tani waa safiye waa xaaskaygiye ogaada markaasay dhaheen subxaana allah nebi allow ma adigan ku tuhmaynaa markaasuu uri may ee waxaan diiday qalbigiina inuu shaydaanku wax ku tuuro mala xun inuu qalbigiina geliyaan diiday war samiixo qaliilay war mariishay war gabdhaha youtuberada ahay ragga ajaanibta maalin walba caal saaranaya waad caal saaritiin maraad kushiinka isku raacdaysataan maraad indhaha iska xirtaan maraad luqmad afka isku gelisaan maraad isdhunkootaan anugu garan maayo waxaan iga dhexeey xaaraan baad niga dhexaysay wax kale nigama dhexeeyaan waa xaaraam laba ajnabiya inay ikhtilaad isku sameeyaan ay isku gooni noqosho labadooda oo axad saddexaad la jirin islaamku waa diidiyey waxaa lagu leeyahay dadka taleefonka ka wac dadkan caanka aad dhahdiin taleefonaad maba qabtaan sheekh anigana shantaayaan ahoo qofku hal mar hadduu taleefonka ii qabo waayo kuma noqdo xaqiiq waayo kuma celiyo macaasida maanta laga aamusay ee sida sharaabka loo cabay waxaa ka mid ah labada kelimo ugu dambaysa wiil yaroo basa xiiran ayaa nikaaxi ku ciyaaray laba gabdhood aan ka harin ayuu maalin walba wadaa cawradiisu asturi waaye wixii ilaahay faruu la imaan waayey qorshihii ilaahay uu daryeeli waayey nebiga sala allahu calayhi wasalam uu ku dayo waayey ibliis uu ku dayday dabagaab uu ku socoyaa markaasaa maalin walba waxaa lagu leeyahay laba xaasle rafaad ahay war yaa xaasaska hanaga aflagaadaynina laba xaasle rafaad ma haayo saddex xaasle rafaad ma haayo nicam iyo raaxo iyo qurux ayaan ku jirnaa yaani yidhi dadka xaasaska ragga xaasaska badan qabaa rafaadsan yaani yidhi ma wiilka basada xiiranaani yidhi ee dabagaabka wata ee habeen iyo maalin haween ajaaniba dhex fadha ee saybiyaana iyo soobe iyo tareebiyaana iyo shaqaalaha iyo dabka dabagaab ku wareegay ee salaad duhur ka tagay ee casr ka tagay ee maghrib ka tagay ee cishuhu ka tagay ee salaada subax jiifka kaga tagayso su'aalaha rabaa inaan weydiiyo dadka kilibkan maqdacan oo gaari doono war wiil gurigiisa ka soo baxay 10 subaxnimo amba 4 saaco subaxnimo ee caawa kowda habeynimo ama 7 saac xafadiisa ku laabanaya ee dabagaab wato salaad ma duka kariya ya ma duka kari dabagaab wata dabagaab markaasoo maalin walba basado noo salaaxa soo ku leeyahay waa sheeko kale maalin walba madaxa u xiran tin dhan ma qabiyo masakiino isla daba joogaa makiimigo inta isticmaashay tintu ka biday Allahu a'lam ilaahi baa garanay laakiin ninkaasoo tin la wiliga imaarano waa madax xiran yahay hadaad aragto fasaadka ay ku hayaan baraha bulshada nimanka waa yaabaysa maalin baa waxaa lagu soo dhaweeyay beerta nabadda mada ahayd ma xasuusto laakiin labada beerooda beer lagu soo dhaweeyay gabdhihii soo dhaweeyay kullu way qawnaayeen kelimada ugu dambaysa Soomaaliyeed hal qola raba inaan la hadlo war dadka ilaahay jecelow waxaa ceebnigu ah war dadka munkarka taageera ay munkarka garba u ah waa la arkaa
maanta waxaan rabaa dadka aniga igu xiran iyo cid kastoo aniga ilamida oo wanaag ka shaqaysa dadka ku xiran arba inaan fariin u diro hadduu yahay sheekh maxamed cabdi umal shiiqayna weyn hadduu yahay sheekh xasaan hadduu yahay sheekh xuseen cali jabuuti hadduu yahay sheekh xasan kaafi cilmi sheekh xasan kaafi cilmi hadduu yahay sheekh maxamed macalin abshir hadduu yahay sheekh cabdi xayi hadduu yahay sheekh shantaay war dadka munkarka ka taageera way muuqdaan mid la leeyahay suldaan saabir ayaa hees soo dhigay shalay miya mase maanta miyase shalay gabadha la heesayso horta hal shilin ma gashna hal dhar ma gashna hal dhar aduu waxaa dhar u taqaana dhar uma aqaan ogta hal shay ma karsana hal shay laa shay ma wadato jirkeeda meel uuna ka muuqan gabadha ma jirto 153 oo qofood baa daawata oo views 15 like bay saartay war dadka ducaada maqdacyada ay soo dhigaan iyo kelimaadyada ay ummadda u jeediyaan iyo baraarujinta iyo fariimahooda 200 oo qofood baa daawatay iska fiiriya 200 oo kun maaha 200 oo qofood baa daawata ama 150 qofood war dadka Allahu Rabbul Alamin jacalow ceebayni igu tahay ceebayni igu tahay munkarku hadduu ehel leeyahay xaqu waa inuu ehel yeeshaa waa in la tartamaa dunidina weligeedii ka jiri jirta dad xaqa u taagan naftooda iyo waqtigooda iyo xoolahooda gashta ilaahay adduun iyo aakhiro waxsan oo ku siiya allah nagu siiyo dad munkarka waqtigooda iyo xoolahooda iyo dheeftooda gashta ay juhdi ku bixiya ay adduun iyo aakhiro waayaan ilaahay adduun iyo aakhiro nama seegaysiiye war waa ceeb waay ruuxu markuu yahayna almujaahir bilmacaasi looma cudur daari karo dembiyada uu allahu jala wacalaa uuna cafine nabiga sala allahu calayhi wasalam baa noo sheegay xadiisku waa saxiix kullu ummatii mucaafan ila almujaahiriin alle ummadayda dhammaantood waa la cafiyey oo waa la saamixi kuwa aan dembiyada la jahrin laa yuxibu allahu ljahra bisuu maanta baraha bulshadaan la fadhinaa waxaa ii hartay 2 qodob talaadadan ka hadlaynaa macaawista iga dhacday wax weyn may arkayn iyo nin la yiraahdo maxamed buskut talaadan ka wada hadlaynaa insha Allah taala hadii Allah doono ninka la leeyahay maxamed buskut nin walaalkii ayaa ka hadlay khayr Allah siiyo la yiraahdo badbaada janal laakiin sida la rabo ugu muusan hadlin sheekh shantaaya ka hadli doono insha Allah taala waa nin aad u edab daran السلام عليكم ورحمة الله وبركاته